meel muxuu ahaa wanaageedu uu soo gaari karo Soomaaliya oo dhan oo ay soo hirsanayso weeye dad Soomaaliya oo kulli hawada naga dhigeysanaya jira hadii ay jiraan qof marka su'aal u qabo wasiirka hawada soo gali kara waxa aad naga soo wici kartaan numberka 21 38 eber 4 92 wa 22 eber 4 92 kulanka waxa aan maqlay ama aan ogahay in maalintii sabtiga ahayd aad si qabatay jalwasiir shirkaas oo ummad Soomaaliyeed oo badan ay isugu yimaadeen galmudug marka aan idhaahdo kulamada dadka alla kulantaan ma galmudug dadka ka yimid kaliya shirarka aad u qabataan mise Soomaalidu anagu shirarka aan qabanno shirar guud baa jira oo Soomaaliya oo dhan oo muxuu ahaa aan u qabanay kulankaas baa kamid ahaa waa lagu casuumay dadka Soomaaliyeed dhammaan inay ka soo qayb galaan si aan u siino warbixinta deegaanada galmudug state ama guud ahaan Soomaaliya wixii warbixina inaan u soo gudbino dadkuna ay ogaadaan xaqiiqada ka jirta gudaha dad badan baa laga yaabaa inay waxyaalo badan oo ku saabsan maamulka galmudug ay iska weydiiyaan si ay fursad u helaan inay naga weydiiyaan wixii su'aal ay qabaan shirarkaas waa ku casuunay Soomaaliya oo dhan baan ugu yeernay waa ku casuunay 21 38 eber 4 92 waxaan ku weydiin lahaa dastuurka marka la sheego waxaan ognahay jamhuuriyadda federaalka kumeelgaarka Soomaaliya in laga shaqeynayay si dastuur loogu dhisi lahaa Soomaali goboleedka galmudug dastuurku muxuu ku salaysan yahay jalwasiir dastuurka muxuu ahaa galmudug state wuxuu ku salaysan yahay shariicada islaamka buu ku salaysan yahay waxa aan akhriyay ama aan maqlay sida aan warka ku hayo Soomaaliya markii dastuurka loo dhisay guud ahaan dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya in laga hadlayay in aad iyo aad u badan tahay marka in xilka diinta dhankeeda lagu qaado dastuurka xukunka qaybihiisa ugu badan inuu diinta ku salaysnaado galmudug xoogga miyaa saaraysan in xukunka maamulka galmudug laga dhigo marka mid guud ahaan 90% ku salaysan dhanka diinta marka sharciga la qorayo sidaas baan aaminsanahay maxaa yeelay dadka Soomaalidu waa dad muslim ah 100% haddii muslim la yahay in lagu dhaqo shariicada islaamka waa muxuu ahaa waa biyo kama dhibcaan maamulka Soomaaliya marka dastuurka laga hadlayay waxa la sheegay in qofku diintu rabo uu haysan karo tiino waa sidee jalwasiir arrintaas waxaan filayaa arrin go'aan hadda la gaaray inaysan jirin oo baarlamaanka Soomaaliya uu codeeyay sida aniga hadda aan la socdo fikir qof waa qabi karaa koox waa qabi kartaa waa laga doodayaa laakiin anagu waxaan qabnaa in muxuu ahaa lagu saleeyo shariicada islaamka aan qabnaa sida ay tahay waxa tahay wasiirka iskaashiga xiriirka caalamiga ah shaqadaadu maxay tahay jalwasiir hadii aan ku weydiiyo shaqadeedu adiga aad sheegtay soo ma dhihin wasiirka iskaashiga caalamiga habka aad u shaqeyso wax ma ku ogaan karnaa waxa su'aalo iga weydiisid oo shaqada ku saabsan waa ka weydiinaya waa xiriirka caalamiga macnaha inaan xiriiriyo dawlad goboleedka galmudug iyo hay'adaha caalamiga international NGOs-ka wadamada cidii ay danaynaysa iyo dawlad goboleedka galmudug inaan xiriiriyo way waxaan ognahay marka la sheego Soomaaliya iyo dawladeeda waxaan ognahay wasiiro kamid ah dawladda federaalka kumeelgaarka ee Soomaaliya ama maamulka aan noqoto dhanka baarlamaanka ama wasiirada qaar inay jiraan dawladaha ku nool marka dalkana xukunkii ka wada adigu deegaankaaga miyaa ku weydiin karaa jalwasiir anigu waxaan deganahay gaalkacyo caasimadda muxuu ahaa galmudug state oo goobta shaqadu ay ka socoto oo in fact waa jirtaa in aan ka tirsanahay diasporaha oo dawladdan hadda galmudug waxaa soo dhisay oo fikirka iska lahaa jaaliyadda dibadda fikirka iska lahayd oo anigu aan kamid ahaa hase yeeshee haddee wixii intii la dhisay meel ilaa loogama tegi karo waa in intii gudihii la tago laga shaqeeyo oo sacrifice loo sameeyo waana deganahay Yurubna waa deganahay in fact 4 sano ayaad sheegtay in sanad guuradii 4 sano ay jirtay galmudug waxyaalaha qabto cad loo qabtay shacabka reer galmudug ama dadka meejan jalwasiir sheegay su'aal aad u fiican weeye wax qabad waa jiraa hadafna waa lahayn in aan gaarsiino muxuu ahaa maamulkan galmudug haddii aan ku tilmaamo waxyaalaha wax qabadka oo laga sameeyay galmudug waxaa kamid ah waxbarashada haddaan tusaale ku soo qaado galmudug markaan asaasaynay deegaankaas waxaa ka jiray 3 iskuul oo hoose dhexe maanta oo 2010 sanadku yahay iskuulada ka furan galmudug state 34 iskuul way isugu jira dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare intaas waxaa raaca inaad meediyaha kala socotid website-yada ma ogi laba muxuu ahaa jaamacadood oo laga furay galmudug laga furay baajir oo hadda aan furnay muxuu ahaa ardadii dugsiyada hoose dhexe sare markay dhameysteen waxay u baahdeen inay jaamacada aadaan
in fursad marka loo siiyo jaamacadihii dadaal ay sameeyeen dadka jaaliyadaha iyo ganacsatada iyo guud ahaan bulshada deegaanka baa keentay in jaamacad laga furo gaalkacyo fursadna la siiyo ardada dugsiyada sare kasoo baxaya jaamacadaha dhiganaya waa laba jaamacadood laba weyn xaggee laga keenay maalgelinta ma shicibka reer galmudug baa lacagta ururiyey oo bixiyey dhismaha jaamacadda ama ururo khaas ama dawladaad ka heshaan caawin dhammaan kharashka iyo dhaqaalaha iyo muxuu ahaa farsamada lagu furay ama lagu muxuu ahaa jaamacadahan lagu dhisay waxaa weeye dadaal ay sameeyeen dadka deegaanka kasoo jeeda ha noqdaan diaasbarada dibadda jooga ha noqdaan ganacsatada dibadaha jooga ha noqdaan ganacsatada gudaha jooga waalidiinta ardada jaamacadaha dhiganay waxa weeye dadaal wadajir loo sameeyey oo muxuu ahaa mirihiisuna noqday in labada jaamacadood la furo ma laga yaabaa sida aanu aaminsannahay haddii dal dhisan ama gobol dhisan oo ismaamul goboleedka galmudug la helo nabadgelyana aada heshaan sida aad sheegtay iskuulle intaa tiro la-eg iyo jaamacad laga dhisay ma laga yaabaa mustaqbalka wax isbedel ah inaad isku daydaan inaad gooni u goodaan annaga waxaan hadda ka hadlaynaa waxaa weeye qorshaha annaga noo yaalla weeye wixii barri imaan doona ilaahay baa og laakiin qorshaha noo yaalla waxa weeye annagu soomaaliya kama maarno adduunka waa la socotaa maantay soomaaliya la kala googooyo iskada wax globalization la yihahdo adduunka hadda ka socda wadamo iyo qaaradaa isku tegaya annagu ma aaminsanin fikirka ah tuulooyinkaas yararka oo waddankan ku yaalla in la kala qoqoobo oo dadkiisa aan kala goy karin oo kala maarmin in la kala qoqoobo oo siyaasad ahaan lagu kala qobo ma aaminsan annaga fikirkaas sharciga iyo dastuurka galmudugna wuxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay midnimada soomaaliya inay muqadas tahay ay muqadas tahay toddobada wasiir jaalle wasiir aad ii sheegtay 7 wasiir ma lagu wadaa sidaa sheegtay waa lasii badinaya habka wasiirada loo qoro ama shaqada loo kala siimaa aqoon ahaan iyo qof inuu noqdo maamul goboleedkaas u dhashay miya waa sax weeye wasiirada waa inuu qofku deegaanka kasoo jeedo soomaaliya waa la socotaa muxuu ahaa wadankii sidii waagii hore uu isugu xirnaayo dowladda federaalku dowladda soomaaliya Somali Republic qofka intii la magacaabo la geyn jiray gobol la geyn jiray hadda maaha dad kasta hadda hoos baa wixii laga soo dhisay maadaama hoos wixii laga soo dhisayo dad kasta deegaankooga ayaga soo dhisay taas ba marka waxay keenaysaa in qofka wasiirka mas'uulka noqonaya uu noqdo qof deegaanka kasoo jeeda hase yeeshee kaba maqna meesha wixii xirfado loo baahdo ha noqoto agaasimayaasha ha noqoto muxuu ahaa shaqaalaha kale dowladda oo xirfadaha leh waa u baahannahay gobolada Soomaaliya oo dhan bay ka imaan karaan balse waxay ka imaan karaan dad xataa Soomaaliya han bay noqon karaan dadka ka shaqeynaya dowladda Soomaaliya dowladda galmudug wasiirada raalli ah ummadda Soomaaliyeed dalkan degan ama caalamka intiisa kale dadna dhageysanaya jira marka waxaan filayaa khadka telefoonka inuu qof Soomaaliya ku jiro su'aal qabo ma maqlaysaa ma maqlaysaa Soomaa waayahay waxaan halkan ku wareysanayaa wasiir ka mid ah maamul goboleedka galmudug laguna magacaabo Cumar Maxamuud Roble Cumar Suuri oo isagu caawa marti ku ah radio Samadoon magacaaga iyo su'aasha aad weydiinaysid wasiirka sida ay u dhiganta haddii aad noo sheegi karto kusoo dhawow barnaamijka marka hore dhammaantiin wasalaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Maxamed Jaaq waxaan jeclaan lahaa su'aalo dhowra oo hordhaca inaan wasiirka aan weydiiyo su-aasha ugu horeysaa waxay tahay jaalle wasiir maxay ahayd muhiimadda ka dambeysay ama mataqaanaa sida ay muhiim u noqotay ama waxa in la helo nidaamka lagu magacaabo maamul goboleedka galmudug waxaan filayaa inuu ku maqlayo wasiirka kolley waxa weeye waxaan u fahmay su-aasha sababta keentay in dowlad goboleedka galmudug la dhiso sidaas baan u fahmay jawaabteedu waxa weeye waddanka haddii muxuu ahaa dowladdii Soomaaliya adeega bulshada iyo kala dambeynta iyo amniga soo celin lahayd haddii meesha ay ka maqan tahay haddii ay fashalmay dadaaladii caalamku uu sameynayeen ama Soomaalidu ay sameynaysay haddii meesha ay ka jirto wax la yiraahdo amni darro iyo kala dambeyn la'aan iyo horumar la'aan annaga waxaan go'aansanay dadka deegaankaas ku nool galmudug hadda ku magacaaban si aan u soo celinno nidaamkii iyo amnigii iyo kala dambeyntii iyo horumarkii inaan maamulka dhisano adduunka hadda aan joognana laguma noolaan karo meel oo maxaa la yiraahdaa law and order aan lahayn oo lawless laguma noolaan karo waa khasab in la helo maamul in la helo sidaas baa keentay inaan soo dhisno waa kulley waad ku qanacday jawaabta aad ka heshay wasiirkan filaya dhageystay aad iyo aad su-aasha labaad weydiina waxay tahay
حرير انت لك ما دام ان وزير حرير عالمي اما gudaha